kulankan oo looga hadlayay qoondada haweenka ay ku yeelanayaan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo guddiga farsamada maamul sameynta Galmudug ayaa kulankan soo qaban qaabiyay waxaana ugu horeyn furtay kulanka Saadiyo Maxamed Cilmi oo ka tirsan mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya. iyo guddiga sharafta leh gabdhahan caawa halkan waxay u joogaan inay idin kala hadlaan baahidooda. caawa anaga seminar ma qabno wax kale isma sheegayno laakiin in caqabadaha jira dhibaatooyinka culayska tabanayaan iyo ciladaha ay isleeyihiin way jiraan sida ay isleeyihiin waa loo gudbi karaa iyo inay helaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka guddigii farsamada Galmudug warkooda qowlkooda hadalkooda ay ku ballan qaadayaan waxa ay helayaan markii ay waqti dheer ku lumiyeen joogista meeshaan ay hadda joogaan. kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa dhankooda jeediyay kelmado ay uga hadlayaan qoondada haweenka ay ku yeelanayaan baarlamaanka Galmudug. laakiin waxa idin sheegaynaa gabdhaha meeshaan fadhiya dhammaantood waxay diyaar u yihiin inta musharaxiinta ama inta kalena waxay garab taagan yihiin gabdhaha musharaxiinta oo xilka raadinaya. maantana waxay diyaar u yihiin geed kasta iyo meel kasta ay u gali karaan iyo meel kasta ay u fariisan karaan inay u fariistaan raadinta qoondada haweenka ay ku leeyihiin baarlamaanka Galmudug ee cusub oo la dhisayo. haddii aan weyno dee waxaan samayn lahayn marar badan horna waa la idin sheegay idinkana waa ogtihiin waana arki doontiin kole waxaan samayn doono. waa in dastuurkana loogu daro qodob ka mid laga dhigo haddii kale qayladaan sanad kasta waa lagu jiraa. qodob sharciga kolba Soomaaliya la dhaawalba haddaan rabno dastuurka 54 iyo 53 dowladda isku dagaalaysa laga dhigaa laakiin bal aan mintina at least aan helno inuu ku jiro qodob ka mid dastuurka yahay oo aan sharci ku doodi karno. wiil walba oo meesha fadhiyo ama nin oday oo dhalinyarada cuslaato oo meesha fadhiyo wuxuu ka soo tagay gabar islaameed adiga ma dhalin gabadha marka guriga uga soo tagaysa kuwaan oo kala waay waxa laga rabaa saa uga farxisay kaaga farxiso inay kuwaan u farxaan haddii kale aadna farximaysid. annaga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu na siiyey inaan noo diidiin khalad waay. aadna u soo dhaweeyaa fikirka ah in gabdhaha laga qayb geliyo awoodda baarlamaanka. hadday noqon lahayd baarlamaan hadday noqon lahayd golaha wasaaradda hadday noqon lahayd executive-ka maamulka sare ee executive-ka ee maamulka sare ee hay'adaha ama kambaniyada waddanka ka dhismi doona haddii aan lidmo waxaan dhiirigelinayaa in gabdho badan ay soo sharaxaan. gabdhaha ay soo sharaxaan maarta waa bogaadinaya gabdho kale oo soo sharaxaan maarta aan way jecelahay. odayaasha saaxiibada iyo khiyaartan waxaan ku dhiirigelinayaa in gabdhaha doorkooda aan maartay la marin habaabin oo la dhiirigeliyo. ugu dambeyntii waxaa kulanka soo xiray gudoomiyaha guddiga farsamada maamul sameynta Galmudug Cabdinaasir Geelle Cilmi. waxaan rabaa anaga dabcan wasaaradda ayaa sheegtay qaabkii iyo habraacii iyo waxa maartay maamuladii la soo dhisay oo ayaga waayagnimo u leh. anaga haddaan tiim guddi ahaan waxaan qaban karnaa waxa waaye waa dhowr qodob. qodobka ugu muhiimsan oo qaban karnaa waxa waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala qolob badaay qoliyo odayaalaha taladanadii gacanta u gashay. qofku markuu odayahana waxa waaye wixiisu iska wataa waa xaaladiisu waa iska maartay allo sahal. odayaashaas iyo adinka inaad is aragtaan doodaan idin geyno la fadhiisataan la garnaqsataan la doodaan ka bacdina dee meeshaas wax la iskaga garto qodob waaye. qodobka labaad oo kale anaga aan samayn karno haddii ilaahay yiraahdo waxa waaye in aan xaqiijino ka guddi ahaan in kootadii dumarka ee 30% ahayd aan lagu xadgudbin oo qabiil kasta iyo jufo kasta ee 3 xildhibaan iyo ka badan iska leh wixii kaga soo aaday oo dumar ahayd ay keenaan oo aan taas aynan dhaafin. Xasan Sheekh Abukar Shabelle TV Dhuusamareeb.